السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا هوبال ميديا ودقا براتان برنامج xiisa badan maqaale kala duwan oo kala gadisan iyo wararkii ugu dambeeyay isla waqtiga ay dhacayaan hobal media hadii uu channelkan ku raali geliyo ama aanad hore ula socon jirin subscribe de like share share gareena hadaba waxaan idin la socodsiin doonaa ama aan idin si toos ah aan idin ku soo gudbin doonaa qiso aad u xamaasad badan sidoo kale ku saabsan noloshiina qisadana waxay u dhigan tahay sida tan waxa jiri jiray dhakhtar ku takhasusay dhanka qalliinka oo la oran jiray dhakhtar Axmed ayaa waxa uu ambabaxay safar degdeg ah waxa uu ugu ambabaxay shir caalami ah oo ay qabsadaan dhakhaatiirta caalamku si uu ugu helo bilad iyo sharaf si la yaab leh intii ay diyaaradda saarnaayeen ayaa waxa soo wajahay cilad farsamo oo ka timid dhanka diyaaradda taasi oo keentay inay diyaaraddu ku degto meel aan meesheedii ahayn isla markaana ay halka ku sugnaato madaarka muddo dhan 16 sannadood dhakhtar Axmed ayaa waxa uu tagay agaasimaha waxa aanu ku yiri sida tan daqiiqad kasta oo ka mid ah nolosheeda waxay u dhigataa badbaadinta hal ruux idinkuna waxaad leedihiin 16 saacadood sug inta diyaarad kale la soo dejinayo oo ay imanayso madaarka waxa uu ugu jawaabay agaasimihii mudane hadduu degdeg kugu jiro waxaad kiraysan kartaa gaari kugu gaarsiiya 3 saacadood meeshii ay diyaaraddu ku degi lahayd dhakhtar Axmed ayaa raacay fikradii agaasimaha isla markaana kiraystay gaadhi haddaba socdaalkiisii gaadhiga ahaa isaga oo sii wata ayaa waxa uu si la yaab leh u da'ay mahigaano roob ah kuwaasi oo marba markii ka sii dambeysay sii badanayay taasi oo sababtay in dirawalkii muraayadii waxba ka arki waayo waa ay sii wateen socdaalkoodii wadadii waa ay arki waayeen 2 saacadood markii ay socdaalkoogii sii wateen kadib waa ay istaageen dhakhtar Axmed ayaa waxa uu arkay guri kadib waa uu garaacay albaabkii guriga kadib waxa uu maqlay cod islaaneed soo dhawow qofkaad doonto had ahaatide albaabku waa uu ku furan yahay markii uu soo galay guriga ayaa waxa uu weydiistay inay qof u garaacdo kadib waa ay ku qososhay waxayna ku tidhi halka aad joogto telefoon iyo leydh lagama helo balse waad ku nasan kartaa halkan shaah diiranna waad ka heli kartaa sidoo kalena cunto waad ka heli kartaa u mahad celiyay dhakhtar Axmed islaantii kadib dhakhtar Axmed waa uu iska nastay isla markaana ka cabay oo ka cunay gurigii islaantu deganayd haddaba intii uu cunayay islaantu waxa ay baryeysay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kadib si la yaab leh waxa uu arkay wiil yar oo ag hurda islaanta kaasoo aan dhaqdhaqaaq karayn kaasoo ag yaala kursi ay ku fadhiday islaantii waa ay iska sii wadatay ducadeedii iyo allabarigeedii kadib dhakhtar Axmed ayaa waxa uu ku yidhi waa aan la dhacay karaamadaada iyo sidaad martida u soo dhaweysaba Ilaahay ha ka aqbalo ducadaada islaanta ayaa waxay ugu jawaabtay waad mahadsan tahay Ilaahay waa iga aqbalay ducooyinkaygii marka mid laga reebo Ilaahay muraadkaaga oo aan macaasi lahayn ha ku siiyo dhakhtar Axmed ayaa ugu jawaabay waa maxay ducada aan Ilaahay ka aqbalin waxa ay ugu jawaabtay kan yar ayay baan u ahay waa agoon bila hooyo iyo bila aabbo labadaba ah siibay cudur ay kari waayeen dhakhaatiir kasta oo tuuladeena joogta inay laan xanuunkaas
balse waxa la ii sheegay inuu joogo dhakhtar la yidhaahdo Axmed kaasi oo jooga meel aad uga fogo tuuladayada kaasi oo ku takhasusay daaweynta cudurkan balse awood uma lihi in aan u tago dhakhtarkaasi markaas Ilaahay baan baryayay oo aan weydiisanayay ducadayda inuu iga aqbalo Dr. Axmed ayaa ilmo isqaban kari waayay wuxuuna yidhi sida tan wallaahi Ilaahay baan ku dhaartay ducadaadu diyaarad dhan bay iga hakisay si ay anigoo ah Dr. Axmed ii ka keento wallaahi maan filayn inuu Ilaahay adoomadiisa sabab iskaga dhigo midba midka kale ilaa aan maanta xaqiiqda taabtay haddaba daawadayaal odhaahda qisadan ku jirta waa sida tan markay dhib kugu timaado cid aan alla ahayn mooye cid kale kaama saari karto haddaba daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii qisadeenna oo ahayd qiso aad iyo aad u taabanaysay dhinacyo badan oo kala gedisan taasi oo muujinaysa ama dareen dheeraada u muujinaysa ummadda ku nool koonkanaynu ku noolahay waxaynu soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii qisadeenna intaynu ku kulmi doono qisadan la mida waxaan idinku dhaafayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته